Soomaaliyeed oo aad iyo aad u walbahaarsan oo aad iyo aad u gubanaysa ayaa isoo wacday. Waxay tiri yaa sheekh, maanta waxaan ka doonayaa inaad tala isiiso. Ninba i qabay. Ninkii waanu isku xumaanay. Ifur ayaan idhi. Kadibna waa uu diiday inuu ifuro. Kadibna meeshuu joogay ayaan ka soo tagay. Meel kale ayaan imaaday. Waddanku joogay mooyeen waddan kale markaan imaaday ayaan wiil isbaranay. Wiilkii markaanu isbaranay, wiilkii waxaan ugu sheegay in la isoo qabi jiray oo la ifuray. Laymana furin ayay tiri. Wiilkii asaga ah waxay tiri waanu isguursanay, waanu xiriir gogoleedna way naga dhacday. Fatra iyo waqti ayaanu wada joognay. Kadib ayaan ninkii u sheegay bay tiri in la iqaba ayaan u sheegay bay tiri. Kadibna ninkii waa cararay. Aniguna xaalkaygu hadda halkaasuu marayaaye, sheekhow ilaahay dartii iila tali. Su'aal baan weydiiyey gabadhii. Waxaan ku idhi yaa ku mehriyey adiga. Waxay tiri magaaladan joogay wadaad jooga ayaa i mehriyey. Sidaa daraaddeed baa hadalkaygu maanta waa saddex geesood weeye. Gabadha hadal baan ku leeyahay iyo gabadh kastoo muslimada. Wadaadka wax mehrinahayana hadal baan ku leeyahay. Ninka wax guursanahayana hadal baan ku leeyahay. Waa marka koowaad waxaan ka bilaabayaa gabadha muslimada ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa rumaysan. Cara haysta darteed iyo cara ay ninkeeda u qabta daraadeed yaynan xuduuda Ilaahay u jeedin subxaanahu wa ta'ala. الدنيا آخر ويكلا بديهن آخر أيا بدن إلهينا سبحانه وتعالى إنو سنكوغو عذر دارين بالغيابا قيامة ومعارضها أضوء الدليل كآت كالنغتي